Asalaamu calaykum waraxmatullah. Kusoo dhowow channelkaygan haddaad ku cusub tahay, subscribe garee, comment garee oo like garee, una gudbi cid kasta oo aad garanayso. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa barnaamijkeena caafimaadka aynu aalaaba kaga hadli jirnay arrimaha caafimaadka. magacaygu waa doctor cabdilaahi sheekh cabdiraxmaan. kusoo dhowaada channelkaygan, sidii caadada ahaydna gaadhsiiya cid kasta, sheer gareeya, subscribe gareeya, cilmigana gaadhsiiya cid kasta. maanta waxaynu dul istaagi doonaa mowduuc runtii u muhiima waalidka iyo ilmahaba inta uu ka yaryahay 3 bilood. mowduucaasi waa mowduuc family kasta oo cusub ama ku cusub caruurta ay ku cusub tahay, aan ujeedo hadda uun curtay ilmahaasi inuu warwargeliyo, waayo waxa weeyaan waa curadkoogii, waa ilmo ay jecel yihiin, ay rabaana in ay ka ilaaliyaan xanuunada iyo dhibaatooyinka soo gaadhaya. ilmaha waxaa laga yaabaa muddada u dhaxaysa 6 bilood ilaa iyo 3 bilood marar kala duwan in lagu arko calaamado qufac iyo dhareer fara badan, marmarka qaarna u dareemaba daal iyo aad aragto isagoo ilmihii aan sidii hore u ciyaarayay aanu ciyaarayn. waxaa barnaamijkaasi aynu su-aalaha kaga jawaabaynaa maxay yihiin, maxaa keena qufacan iyo candhuuftan faraha badan iyo ilmahaasi inuu daal iyo dareemo, mararka qaarna oohin iyo ay u raacdo in uu xanuunsanayo oo kale. ilmahaasi hadduu u dhexeeyo muddada aynu sheegnay, muddadu waxa weeyaan maxay, waa 6 bilood ilaa iyo 3 bilood. ilmahaasi haddii aan lagu arko calaamadaha masalan inuu ilmahaasi qufac leeyahay, weliba gaar ahaan habeenkii marka uu seexdo, qufacaasi oo ayna soo raacaynin waxyaalo kale sida inuu temperaturekiisii ama uu kor u kacay muxuu ahaa heerkulkii jirhkiisu oo aanad ka dareemaynin inuu kulayl fara badan jirhkiisa ka jiro, qufac daraaya ah. talabaad ay u dheer tahay inuu ilmahaasi dhareer aada u fara badan uu ka da-ayo afkiisa. ilmahaasi uu jecel yahay sidii hore si ka badan inuu wax kasta oo uu helo ama dhulka uu ka helo ama uu ku ciyaaro, masalan waxyaalahan uu ku ciyaaro ee ilmaha loogu talagalay inuu ku ciyaaro, ku madadaalaysto, in uu mar walba isku dayayo inuu qanqaniino ama uu afka la doonto. xaaladahaasi hadday ilmaha iskugu biiraan, inta badan waalidku waxaa laga yaabaa inuu warwaro oo is yidhaahdo la doono ama gaadhsii dhakhtar. haddaba runtii sida caadada ah dee waxa weeyaan waalidku inuu ka warwaro waa waxa iska caan ah. ilmaha waana waxa waalid uu yahayba, inuu daryeelaana waa sababta u dhalay, waana wax looga baahan yahay. laakiin talada maanta aynu dhiibaynaa waxa weeye, haddii aad aragta ilmaha oo qufac habeenkii u badan, candhuuftaa faraha badan ama dhareerkaa faraha badan uu ilmuhu sii daynayo, daal fara badan marka qaar u dareemayo, ad ka aragta isagoo oohin marmarka qaar ah, temperatureka jirhkiisuna uu normal yahay ama heerkulka jirhkiisuna uu normal yahay, wax ku kordhayna ayna jirin xaggii temperaturekiisa, waxaad kow horta adeegtaa oo aad u fiirsataa waalid ciridkiisa. haddii ciridkiisu uu cas yahay ama yaro bararay amaba ay ka soo muuqdaan cadcadaan yaryar oo sheegaya sidii waxay ilka usoo baxayaan, markaa waxaad ogaataa inaanad werwarin, ilmahaaga wax dhibaatay ayna haynin, ay tahay uun jas ilkaha u soo baxaya ay dhibaatada ku hayaan. laakiin iyadoo sidaasa, haddana waxaan kugula talin lahaa inaanad go-aan deg dega ku qaadanin taladan, ee aad u geyso dhakhtarka ciyaalka si uu kuula hubiyo waxa aad aragtay, waayo waxaa dhici karta marmarka qaar xanuuno kale oo u eegi inay ilmaha hayaan. fideogeenu maanta ama taladeenu maanta caafimaadku waxa weeye in ilmaha haddii aynu calaamadaha ku aragno, aanad warwar fara badan ku arag, ilkahaas oo soo baxaya un weeye, wax dhibaato ah oo kale ma jirto. ilmaha waxaad siini baracetamolkaasi xanuunkii hayay iyo ilkihii usoo baxayay ayuu ilmaha ka yaraynayaa.
waxaana laga yaabaa 3-4 cisho kadib markay ilkuhu soo baxaan inuu ilmuhu iska okay noqdo, wax dhibaatayna ma jirto. laakiin sidii aan hore u sheegay, go'aan ha ku qaadanin talada ee dhakhtarka u geeya ilmaha. waa mahadsantihiin dhammaantiin daawashada wanaagsan iyo sidaad wakhtigiina inoo siiseen. sidii caadada ahaydna subscribe gareeya, share gareeya, gaarsiiyana cid kasta waad isleedihiin cilmigana wuu gaari karayaa. waxaynu isku ognay amaan allah. wasalaamu calaykum waraxmat ullah.